galbeed Soomaaliya Shariif Xasan Sheekh Aadan iyo wafdi ballaaran uu hogaaminayo ayaa maanta safar dhulka ah waxa ay ku gaareen magaalada Marka ee gobolka Shabeellada Hoose caasimadiisa waxaana wafdiga madaxweynaha markay halkaasi ay gaareen si diiran ugu soo dhaweeyay dadweyne aad u fara badan oo ku faraxsanaa soo gaaritaanka madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya in uu yimaado magaaladaasi Marka wariyaheena Xuseen Nuur Geesay oo wafdigaasi la socda ayaa warbixinta warka inooga soo diray magaalada Marka madaxweynaha dawladda Koonfur Galbeed Soomaaliya xubno ka tirsan golahiisa wasiirada qaar ka mid ah hogaamiyaasha beelaha dhaqanka ee ka soo jeeda Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa haatan gaaray qaybo ka mid ah gudaha gobolka Shabeellada Hoose madaxweyne Shariif ayaa socdaal waxa uu ka bilaabay degmada Afgooye oo ka mid ah degmooyinka hoos yimaada gobolka Shabeellada Hoose madaxweynaha ayaa waxa uu gaaray degmada lambar 50 gobolka Shabeellada Hoose waxaana halkaasi ku soo dhaweeyay qaybaha kala duwan ee bulshada haweenka odayaasha dhaqanka siyaasiyiinta maamulka iyo ciidamo markaasi la sheegay inay qayb ka yihiin ciidamada tan loo tarbiyay ama loo tababaray dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya gudoomiyaha maamulka ee degmadaasi Waafow ayaa isna ku dheeraaday taariikhda ay leedahay degmada lambar 50 oo ah meel si badan ay ugu dagaalameen qaar ka mid ah beelihii ku dagaalamay gobolka Shabeellada Hoose Waafow ayaa sidoo kale waxa uu tilmaamay haatan inay si weyn u dhaqan gashay heshiiskii Koonfur Galbeed Soomaaliya ay dhaxdhigeen beelaha Habargedil iyo Biimaal السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مدن مدحويني waxaad maanta nasiib u yeelatay degmada lambar 50 ina soo gaarto annagana nasiiban u yeelanay madaxweynaha dowladda Koonfur Galbeed mudane Shariif Xasan Aadan isna soo gaaro aad baan nasiib ugu yeelanay waxaan sugaynay dowladda Koonfur Galbeed in badan waxaan diyaar u nahay awaamirta dowladda Koonfur Galbeed aan u shaqeyno waan sugaynay in badan madaxweynaha dowladda Koonfur Galbeed Soomaaliya Shariif Xasan Sheekh Aadan oo la hadlayay odayaasha dhaqanka qaybaha kala duwan ee bulshada ee ku nool degmada lambar 50 ayaa sheegay isagu dhankoodu in ay wax badan ka qaban doonaan xaaladaha haatan ka jira deegaanada hoos yimaada gobolkaasi ka bixiyo nabad uu siiyo dadka Soomaalida oo walaalaha oo ahalka oo isla dhashay isku diinta oo isku dhiiga ah in ay isdhex galaan oo nabad isku noolaadaan oo nabad ku noolaadaan Ilaahay ka bariyo idinku aad iyo aad u mahadsan nabada iyo wanaag leh nabadan waa idin mahadcelinayna caalamkuna waxaan ugu baaqaynaa in number 50 si gooni ah dhibaatadii ku dhacday oo caalamku soo gurmado hay'adaha oo samafalka dhammaan ay u soo gurmadaan waxbarashada ana wasiirkeena waxbarashada waa socdaa wasiiradana dhamaantood waa socdaan waxaan ka rajaynaynaa wasiir walba inuu qaadan uu qabto caalamkuna waxaan ka codsanayaa dowladda Soomaaliyeed in loo soo gurmado dhibaatadii ku dhacday sidii dhibaatadaas looga kabi lahaa gurihii gudii loo dhisi lahaa iskooladii loo sameyn lahaa wanaagii loo sameyn lahaa ayaan ka codsanaynaa runtii waana la gaari doonaa biidin Ilaahi Kariim wanaaga la gaari doonaa ciidanka inta joogana waxaan u ballan qaadaynaa in ciidanka booliiska noqdaan oo Koonfur Galbeed oo hogaaminayay ummadooda u adeegayay ummadooda u baahnaa u qabanayay in airportkii la dhiso airportkii la furo process uu noogu jira ayagana waxaan ka codsanaynaa annaga waxaan rabnaa in dawladnimo meeshan lagu soo celiyo degmadana degmo sharaf badan waaye gobolka oo dhan gobol fiican waaye waxaan leenahay dhibaato waa la soo arkay in nabad la aado marka waxaan ballan qaadaynaa dhinaca maamulka Koonfur Galbeed ahaan inaan dadaal aan waxba la harin caalamkuna waa ugu baaqaynaa in degmadan sida ugu dhaqso badan loo soo gaarsiiyo wax allaale wixii dhibaato oo gaaray iyo wax allaale wixii adeeg guud ay u baahan tahay in la qabto dadka qaasanayo inta kadib wafdigu uu hogaaminayay madaxweynaha dowladda Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa saacado kadib waxa ay soo gaareen magaalada xeebeedka ee degmada Marko waxaana ku soo dhaweeyay qaybaha kala duwan ee bulshada maamulka degmada iyo qaar ka mid ah mas'uuliyiinta maamulka gobolka Shabeellada Hoose hase yeeshee markii halkan soo gaareen ayaa qaar ka mid ah wasiiradii Koonfur Galbeed Soomaaliya waxa ay sheegeen inay si weyn ugu faraxsan yihiin imaashaha madaxweynaha dowladda Koonfur Galbeed Soomaaliya uu soo gaaray magaalada Marko Cabdinaasir Caruush wasiirka wasaaradda iskaashiga iyo qorsheynta ee dowladda Koonfur Galbeed Soomaaliya halkaasi hadal gaaban ka jeediyay ayaa waxa uu tilmaamay
ومعتصنتها waxaan marka hore ku soo dhaweynayaa marlabaad madaxweynaha iyo wafdigiisa magaalada Marka madaxweyne xubnihii golaha wasiirada ee jooga gobolka Shabeellaha Hoose waqti ka badan hal bil waxay qabteen shaqo aad u muhiim ah gaar ahaan dhinaca nabadeynta iyo isdhexgalka bulshada hawshaasna meel fiican ay maraysaa wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka ee dowladda koonfur galbeed Soomaaliya Maxamed Xasan Faqi oo isna hadal gaaban halkaasi ka jeediyay ayaa sheegay muhiimadda ay ku fidhido imaashaha madaxweynaha dowladda uu soo gaaray magaalada Marka madaxweynaha waa noo joogaa isagaan sugaynay madaxweyne Marko bil ka hor siday ahayd maanta ma aha waxaana micnaha tilmaamayso soo dhaweyntaas aad kala soo kulantay laga soo bilaabo number 50 ceel jaalle caawa ood ku sugan tahay degmada Marka waxaan ku rajaynaynaa insha Allah inuu noqdo safarkan safar aad dadka Marka aad ugu wareysato aad wax badan ka kororsato hadduu Ilaahay raali ka noqdo mar rabna inaan ku daalino golaha wasiirada way daalan yihiin madaxweynaha dowladda koonfur galbeed Soomaaliya Shariif Xasan Sheekh Aadan oo isna la hadlayay dadweynaha ku nool magaalada Marka ayaa waxa uu ku dheeraaday in magaalada Marka ay muhiim u tahay koonfur galbeed ee Soomaaliya sidaas darteedna loo baahan yahay dadka ku nool in ay sacafiyaan gacmaha ay isqabsadaan kana shaqeeyaan horumarka guud ee degmada Marka ee gobolka Shabeellaha Hoose inta kale Ilaahay waan ka baryaynaa nabad inuu Ilaahay nabad nasiiyo anaga heshiiskii lagu soo gaaray afgooye waxaan rajaynaynaa qodobadiisii in la wada fuliyo qodobadaasna waxaan aaminsanahay wuxuu dan u wadayahay ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan dadka dego saddexda gobol gaar ahaan degmada Marka inuu nabadaas u tahay dhaweeyo nabadda hal wada qaato qof kasta Soomaaliya waxaan leenahay walaalow nabad qaado wax walaal nabad ka roon la arki maayo gaar ahaan maamulka koonfur galbeed saddexda gobol aanada iyo gabdhaha iyo kuri dhamaantood iyo wasiirada iyo dhamaantood waa aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa walaalaheen ciidamada oo rag duurka ku jiray iyo gabdhaha duurka ku jiray oo nabadda qaateen runtii waxaan leenahay guuleysta nabadana noqda kuwa ciidan noqda oo dadkooda u adeego dadkooda nabadda u keeno kuwa dhibaatada wada dawladdiidkana ka celiyo dadkoodana nabadda u horseeda noqda sidaasaan idinkuna sharaf idin ah laakiin in la dagaalamo duurka lagu jiro waxba lagu gaari maayo anaga waxaan u baahanahay marka siday ahaan jirtay ana maalintii ugu dambeysay maraakiib Muuse laga rari jiray runtii sidoo kale noqotaan Ilaahay ka baryeena taasna nabada lagu heli karaa taas walaalnimo lagu heli karaa taas aragti fiican lagu heli karaa laakiin lagu ma helayo in la sariixo oo la isficilo annaga waxaan leenahay walaalayaal oo nabad wax ka fiican ma leh nabadda hala qaato intii nabadda ogolaatay intii ka shaqeysayna waxaan leenahay waa mahadsantihiin Xuseen Nuur Geesay telefishinka Royal magaalada Marka xarunta gobolka Shabeellaha Hoose